bariga dhexe waxay u muuqataa in lagu kala baxay ninkii bukay ee dhaxalkiisa la isku haysta ayaa markan waxa uu leeyahay waan caafimaaday taladana ana iska leh muddo ayaad maqlaysay Israa'iil iyo Mareykanka oo leh qasa haddii aanay Falastiiniyiintu soo dayn dadka la haystayaasha Israa'iil magaaladaas waxaynu ku furaynaa albaabkii jaxiimada wixii oo dhan hadda waa laga soo tagay goodinta waxa ay ka socotaa dhinaca Carabta ninkii bukay ee dhaxalkiisa lagu gorgortamaya ayaa leh maanta waa maalinteedii go'aanka ana iska leh bariga dhaxana ana siyaasadiisa jaangoynaya madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Lubnaan Joseph Aoun ninka lagu magacaabo waxa uu yiri dalkayga kuma arki karo askari Israa'iiliya oo ku sugan generaalkan talada la wareegay hadalkiisa waxa uu u muuqdaa in uu diyaar garoobayo amar ayuu siiyay taliyaasha ciidamada dalkiisa waxa uu ku yiri diyaar garooba xuduudaha wadanka ayaa difaac nooga baahan haddaba arrintan maxay ku soo aadaysaa maxayse ka dhigan tahay Benjamin Netanyahu muxuu uga jawaabi doonaa Lubnaan ma ilaalin kartaa gobonnimada qarankeeda iyadoo ka hortagaysa weerarada Israa'iil ay gudaha Lubnaan ka fuliso barroosho muuqaalka koowaad ee maanta arrimahaasi ayaan qaybtan ku dul istaagayaa sidoo kale boqor Cabdallah bin Hussein ninka hogaamiye jamhuuriyadda Carbeed ee Urdun lagu magacaabo ama Jordan waxa uu yiri 25 sanadood anigu qadiyada ama arrinta Falastiiniyiinta kama tanaasulin ciddii rabta inay barakiciso shacabka magaalada Qasana waxaan leeyahay hadalka aan leenahay waa inay dhagahooda u furaan Gaza Falastiiniyiinta ayaa yeelan doona cid ka saari karaysana malaha Benjamin Netanyahu waxa ku furmay togog adag oo ay markaan adag tahay in uu mooso laakiin siyaasad ahaan ma lagu badbaadi karaa maxayse tahay Carabta waxyaabaha hadda dhiirigelinaya ee qasbaya hadalladan adag inay keenaan Masar horey u goodisay Lubnaan warba ka soo baxay Jordanna waxay leedahay iska daaye maalinna shacabkaasi ma baxayaan Carabtu ma dagaalamaysaa maxaa cusub bariga dhexe muxuu foolanayaa muuqaalkan ayaan ku dul istaagayaa saaxiibayaal si aad xogtan iyo macluumaad kale oo dhameystiran u heshaan ku soo biira YouTube-keena oo subscribe dhaha share gareeya muuqaalka saaxiibadiin la wadaaga Facebook haddaad nagala socotaanna follow ina soo dheh aad baad u mahadsantihiin sida aad la socoteenba jamhuuriyadda Lubnaan waxa la wareegay generaal muddo dheer ciidamada ku soo jiray Joseph Aoun ayaa lagu magacaabaa waa nin hanaanka hogaaminta iyo militariga waqti dheer ku jiray isla markaana fahmi kara kaartooyinka dagaalka meelo kala duwan oo caalamka ahna ka soo shaqeeyay rugcada military ah siyaasi gaamuray faham badan ka haysta bariga dhexe ayaa hadda soo saaray warkii ugu kululaa ee hogaamiye Carbeed uu ku dhawaaqo generaalkan talada Lubnaan hogaaminaya waxa uu yiri ma aqbalayo askari Israa'iili ah in uu ku sugan yahay gudaha dalkeena ciidda Lubnaan waa inay u ekaataa jamhuuriyad madax bannaan isla markaana Israa'iil waa inay joojiso xadgudubyada ay dalkan ka sameynayso hawada dhulka iyo biyahaba ciidamadeena waa inay u diyaar garoobaan ayuu yiri difaacooda Benjamin Netanyahu waadi kale ama tog kale ayaa ku faruurmay awal waxa la iska ilaalinaya Hezbollah iyo waliba kooxaha kale ee Lubnaan ka dhisan oo ay amal ka mid tahay kuwaasi oo diidanaa Israa'iil jiritaankeeda iyo joogitaankeeda Lubnaanba laakiin hadda madaxweynihii caalamku aqoonsanaa ee jamhuuriyaddaasi hogaaminaya waxa uu leeyahay dalkan innaga ayaa iska leh innaga ayaa u madax bannaan innaga ayaa maamulayna igama suura gasha anigoo ah generaal muddo dheer ciidamada dalkeena ku jiray taliye la yaqaano oo qaangaar ah iyo waliba hogaamiye si fiican dadkiisa ay u garanayaan haddana lagu aaminay taladii dalkiisa in ciidda Lubnaan uu jooga askari Israa'iili ah oo waliba dawladeeda aan ka amar qaadan qaanuun caalami ah halkaan aan ku joogin hadalkan waxa uu imaanayaa xilli Carabta waayidii ugu dambeysay habar wacasho dheeraada ku jirtay isla markaana Benjamin Netanyahu ay ku dhacayeen fariimo waaweyn
oo dhagihiisa aad u xanuunjiyey maanta waxaa la baajiyey maxkamaddii uu ka soo muuqan lahaa sababo la xiriiray siyaasada uu sheegay in nidaamka Israa'iil ay ku soo furmeen hadda Joseph Aoun waxa uu leeyahay gudbo maalmihii tagay ee aynu madaxa hoos u laalaadi jirnay hadda waxaa la joogaa xilligii madaxeenna aan kor u qaadi lahayn haddii aan Lubnaan nahay oo aan dhihi lahayn dhulkeenna innagaa iskale dhaqankiisana innaga mudan oo cid kale maamulkeeda suuragal maaha innagu ma ogolin buu yiri inaan cid kale ku xadgudubno sidaa daraaddeed in dalkeenna lagu soo xadgudbana cidna laga dhagaysamaayo waa fariin dagaalo dadban ayaa la leeyahay oo Netanyahu iyo Tel Aviv baa dhigaheeda ku socota taasi oo hadda carabta ay si aad ugu dhiiranayaan ninka waa dhagaysta Soomaa hadalkii uu yiri si fiicanna waa uu kaaga dhacay naga soo kaxay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan markaana nakeen caasimadda waddanka Jordan boqor Cabdallah bin Hussein ama boqor Cabdallah labaad ee dalkaasi Jordan hogaamiya maalmihii ugu dambeysaba hadalla culculus oo waaweyn oo miisaankooda leh ayuu banaanka keenayay hadda hadal la yaab leh ayuu ninkan warbaahinta siiyay 25 sano ee la soo dhaafay arrinta Falastiiniyiintu aniga meel ayay iga taalaayay yiri waxaan diiday inaan ka tanaasulo dhulka Falastiiniyiinta in la iska qaato iska badaaye in dadkooda la dilo oo meeshii aan ka taagnaa la yaqaanay anigoo maanta boqor ah dalka Urdunna hogaaminaya uma ogolaanaya buu yiri Netanyahu iyo xulifadiisa reer galbeedka in shacabka magaalada Gaza ay barakiciyaan innagana naloo keeno shacab guryahooda laga soo raacdeeyay oo godob tirsanaya waxa uu yiri timirtii horeba lafloowa ama dabloowa ujeedadu waxa ay tahay dadkii laga soo saaray Xayfa iyo Casqalaan iyo daanta galbeed ayaa hadda noloshoodii meelan geyno aan laanahay boqolaal kun oo qaxooti Falastiiniyiin ayaa Urdun jooga aqliyada saxda ah ee garaadka dhabta ma aqbalaya ayuu yiri in dadkaasi la keeno Lubnaan ay aqbasho mar kale dadkaasi gabood ku dhacaya inaan qayb ka noqono marka aad fiiriso hadalkan labadan mas'uul ka soo baxay saacado isku dhow waliba xaaladdu waxay taagan tahay baraka male bariga dhexe waxbuu foolanayaa laakiin waxa uu foolanayo lama yaqaano ma dagaal weyn oo shaamila oo ay carabtu gashaa ma wax kale ayaa lagu bislaysanayaa ma Netanyahu ayaa hadda maraya marxaladii adkayd oo uu kaga jawaabi lahayd inuu bariga dhexe ku maamulo ma fariimo adag oo ku socda ninkii ahaa Donald Trump oo isaga siyaasado waaweyn oo bariga dhexe ku saabsan maalmihii dambe keenay sidee wax u socdaan waa su'aalaha u baahan in si caqli iyo fikir dheer loo darso isla markaana laga shaqeeyo sida la socoteen barnaamijkan kii hore waxaynu ku baahinay Masar iyo Israa'iil oo qarka isku saaran in ay si gaar ah u dagaalamaan hadda Lubnaan waxay leedahay haddii aan nuglaan jiray maanta aniga ayaa ah mid nadisita oo cidii ka hor timaaday jeeda la dhacaya dalkayga ana iskale waan xooganahay generaal ana hogaamiye dalkan oo leeyahay Joseph Aoun sida daraadeed ma aqbalay cid inay joogto boqor Cabdallah labaadna ama boqor Cabdallah Hussein waxa uu leeyahay innaga ma aqbali doona qadiyad aan hore uga tanaasulo weynay inaan markan Netanyahu ka qaadanayo Trump inay noo soo bandhigaan bariga dhexe waxbuu foolanayaa Sacuudiga hore waxa uu soo daayay kaydadkii madaxdii hore ee Sacuudiyaanka ah ay ka yiraahdeen bariga dhexe iyo arrinta Falastiiniyiinta Falastiin qadiyadeeda hadda waxay u ekaatay mid caalamka gaartay iska daa caalamka ee qowmiyadii carabta oo aan caqiido iyo aragti iyo fikir iyo mabda midna ku salaysnayn xaaladdu ay tahay mid carbeed inkastoo ay carabta hadaladeeda banaanka keeneen waxa joog iyo jaaq laga leeyahay ninkii ahaa Turkiga hogaaminaya Rajab Tayyip Erdogan ahaa oo isaga waqtiyadii adkaa goodin jiray maanta oo xaaladdu ay taagan tahay meeshii adkaydna aan hadal oran haddaba soo dhawaada maalinba hogaamiye carbeed ayaa dhaaranaya oo go'aanada ka soo baxayaan ma kula tahay Netanyahu waqtigiisii gabagabada in la joogo Israa'iilna suuragal ma tahay in qoryaheeda ay risaasta ka saarto ay tiraahdo carabay aan nabad ku macaamilno bariga dhexe aan isu fahanno
suuragal sama tahay Trump hadalladiisa goodinta ahayd in lahjada ka duwan diblomaasiyadda uu ku hadlayo uu banaanka keeno maadaama goodintu ay meel walba gaartay isla markaana sheekadu ay noqotay ruwaay daalay dagaalkiisa loo tagaa oo sida hadda carabtu ay samaynaysaa aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal taxliilkan qaybtii koowaad ee bariga dhexe Barrow Show intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa aragtidaada qaybta hoose ee commentiga iyo faallada ku soo qor waa Cabdi Casiis Barrow idile isma dhaafno